munaasabad lagu taageerayay murashax madaxweyne ku-xigeen Axmed Cismaan Axmed Karaash ayaa lagu qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana ka soo qayb galay cuqaal waxgarad salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaybihii kala duwanaa ee ku sugnaa madasha ayaa waxa ay bogaadiyeen in murashax Axmed Karaash uu isu soo sharaxo madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxaana ay tilmaameen inuu yahay murashax u qalma jagada madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxgaradkii haweenkii qaashi iyo dhalinyaradii madasha ka hadashay ayaa waxa ay ugu baaqeen in madaxweyne ku-xigeenka Puntland ay u doortaan Axmed Cismaan Axmed Karaash yeerayno Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash sanadkii isagoo taagan 2019 musharaxnimada madaxweyne ku-xigeen ee maamulka Puntland waxaanu ugu hambalyeynaa maadaama isu soo taagay Axmed Cilmi Cismaan jagadan oo in badan ku banaanayd gobolada Sool Sanaag Cayn waxaanu ku hambalyeynaa sida wanaagsan oo isugu soo taagay booskan iyo jagadan sida markay ahayd anigu de ismalihi xil baaba u haray waaba dooran yahayba baan isle waaba dooran yahay waa dooran yahay una u qalmaa hankeedana waa leeyahay tolkeedana waa leeyahay dalkeedana waa leeyahay waxaan kaloo message halka uga dirayaa ma jeerteen oo aanu nahay dad maamulka wada dhistay inay nala doortaan Axmed Cilmi Cismaan madaxweyne ku-xigeenka Puntland Master Karaash Axmed Cismaan Cilmi waxa weeyaan waa nin reer Mareykan waxaan u maleynayaa dalkan umuu imaan inuu lacag ka sameeyo ama uu darajo ka helo wuxuu u yimi dalkan la haysto ee Sool Sanaag Cayn inuu xoreeyo oo ka dulqaado cadawga haysta ee gaamuray wuxuu geed hoosti u jiifsaday oo ay injiri ugu gashay inuu dalkan xoreeyo ilaahayna uu la qabto waxaan leeyahay harti waxaan u jeedinayaa hartiyow dhulkii waa la idinka haystaa barkii waxaa la idinka doonaya inaad soo celisaan ninkii soo celin lahaana waa Axmed Karaash muujinayna wasiirka hore wasiirkii duulistii hawada garoomada Puntland hadeerna u sharaxay madaxweyne ku-xigeenka Puntland 2019 Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waxaad moodaa baasu inay hore u dhaqaaqala ah maanta deena adag u baahatay waa la ogaa Axmed Karaash wax qabadaysi inuu gacan dar oo 10 kilomitir gobolka Sool u jirta uu ka soo garaacay gobolka hadeerna wuxuu soo qaban doonaa gobollo badan oo maqan oo Puntland marka hadalkayga soo gaabiyo waxaan leeyahay 66 xildhibaan ee Puntland waxaan leeyahay niyo geed kala garta madaxweyne ku-xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waan taageeraynaa waxaan meesha isugu nimadeeyo taageerno 66 xildhibaanna waxaan ku codsanaynaa inay isaga ay foodka siiyaan waayo waa nin u qalma oo macnaha arinta mutaystay oo dadaalkeeda leh waxaana kala jeclaysiisay silaca aanu ku jirno iyo Sool ninkii naga soo reebi lahaa Axmed Mooyeen aan mid kale jirin taamarkan ka soo gudbo waa la og yahay markuu madaxweynaha ka ahaa Khaatumo dhulbahantaa doortay Axmed markuu arkay Khaatumo inay khiyaamo ku jirto Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa haddii laba bahal bidhiidhow ka isugu beegdo hadba kii bahnimo ku xigaa la isu buriyaa Puntland buu uga beeray markuu arkay inay khiyaamo ku jirto salaanka bacdi waxaan halkan tahniyad uga diraynaa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash saabka waxaan leenahay cid wax ku fari mayso cid wax ku faraysaa ma jirto taa waxaan ku leeyahay dadka u dhashay gobolka Sool gaar ahaan gobolada Sool Sanaag Cayn waa loo kal shaarad ka dhigtay soo cad garatay maaha dadku sidii bay kugu baahan yihiin sidii bayna ku sugayaan aad bayna kugu baahan yihiin dadka degan Cayn meesha la yiraahdo Xudun Orbogays dib qarax fiqiga Ceergaabo meel kasta
gacmo furan bay kugu soo dhaweynayaan. gabagabadii goobta waxay ku soo bandhigeen maansooyin kala duwan oo lagu amaanayay taageerana loogu muujinayay murashax madaxweyne ku-xigeen Axmed Karaash. أحمد أقول هاي سوالي قاقذال همرين أحمد أقول هاي سوالي قاقذال همرين عليمو كامتا تنعشيقا كيمي الله عذوكو تشاذي يوسن تلا ذهلين شيشي مركها اللدود ايس شري عقبو إذن آمين ودها أبين وأخبار